Assalaamu calaykum. Soo dhawaada walaalaha ku xiran channelka Cartoon Media, kuna soo dhawaada qisadeenan aadka u murugada badan. Qisadan waxa ay ka dhacday dalka Australia. Fadlan inta aynan u gelin qisadeena, like saar, naguna dhiirigeli inaad jeceshahay muuqaalada noocan oo kale ah. Subscribe na dheh, kuna soo biir channelka si aad uga mid noqoto asxaabtii hore noola joogtay. Aynu bilaabano muuqaalkeena maanta. Nin oday ah oo caaqil ah ayaa muddo xanuunsanaa. Kadib maalintii dambe ayaa wuxuu dareemay in ay geeridii soo hayso. Dabadeedna waxa uu u yeeray wiil uu dhalay, wuxuuna ku yiri, wiilkaygiyo, waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid ah in aan geeriyoodo. Waxaana kaa doonayaa ama kaa rabaa geeridaas haddii ay ii timaado in aad igu samirto, dulqaadna yeelato. Tan kale waxaan kaa codsanayaa marka la idhaqo ama la imayro kafanta la igu duubi rabo in aad ii geliso mid ka mid ah sharabaadadayda, kuwaas oo aan kabaha u xiran jiray. Maalmo yar kadib odaygii waa uu dhintay ama geeriyooday. Dabadeedna markii meydkiisa la dhiqi rabay ama la kafani rabay ayuu wiilkii yaraa soo xasuustay dardaarankii aabihiis. Waxa uuna la soo orday iskaalsihii ama sharabaadadii ninkii meydka dhaqayay, ayuuna ku yiri, lugaha u geli inta aanad kafanta u xidhin. Ninkii meydka dhaqayay ayaa waxa uu ugu jawaabay, wiilkaygiyo, arrintan lama ogola. Qofka meydka waxaa loo ogol yahay ama loo xirayaa kafantiisa oo keliya, sida ay qabto shareecada Islaamka. Kadib wiilkii yaraa ayaa ku yiri, adeer, aabahay ayaa igula dardaarmay inaan sidan u sameeyo, ee u xidh sharabaadada, waan ku baryayaa. Ninkii meydka dhaqayay ayaa yiri, arrintan shareecada Islaamka ma waafaqsana, ee haddaad rabto soo weydii culimada. Wiilkii yaraa ayaa u tegay nin sheekh caalim ah, wuxuuna ku yiri ama wuxuu weydiiyey, sharabaadada ma loo xiri karaa qofka meydka ah kadib marka uu geeriyoodo? Sheekhu waxa uu u sheegay, qofka meydka waxaa loo xirayaa oo keliya kafanta ama go'a cad ee meydka lagu duubo, dharkiisa kale oo dhan wax ka raacaya ma jiraan. Wiilkii oo yaaban ayaa u yimid adeerkiis, wuxuuna ku yiri, adeer, sharabaado ayaan isdhahay aabahay u xidh, wuu igula dardaarmay, kadib waa layga diiday. Wiilkii yaraa adeerkiis markuu codkaas ama hadalkaas maqlay ayaa adeerkiis waxa uu u soo saaray warqad uu aabihiis u dhiibay, uu kana codsaday marka uu geeriyoodo inuu wiilkiisa u hadiyeeyo ama uu siiyo. Wiilkii yaraa warqadii ayuu furay, waxaana ku qornayd sidaan, wiilkaygiyo, waad aragtaa waxa aan hanti ka dhintay oo dhan maanta. Waxay kaa diidan yihiin inaad hal sokis ama hal sharabaad oo keliya ka qaato. Waxa la ii ogol yahay oo keliya kafantaas cad. Adigana maalin ayay kugu imaanaysaa booska aan hadda joogo. Sidaa daraaddeed, adduunyada yaysan kula tegin. Waxa aad maanta haysato biri kuma raacayaan. Hantida aan kaaga tegay u qarash gare ama u isticmaal sida uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali yahay, oo ka bixi xaqa lagu leeyahay sida sadaqada iyo sadaqada. Wiilkii yaraa wuu garowsaday hadalka qiimaha badan ee uu aabihiis uga tegay.